السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أن جعلها ميل وبوات جوكتان waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray. Haddii aan ku horeyno Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa isku shaandhayn kooban ku sameeyay golihiisa wasiirada, wuxuuna magacaabay 3 wasiir. سعيد حجر عملوا ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. عبد الفتاح حسن فارح ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sakariya Khalid Cabdi ayaa asna loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. Magacaabistaas kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Hirshabelle ayaa lagu dhaariyay 3daas wasiir. sidoo kale haddii aan fiirino caalamka iyo wararkii ugu dambeeyay, dowladda Hindiya ayaa muwaadiniinteeda ku sugan dalka Israa'iil uga digtay inay joogaan xuduudaha Lebanon iyo Israa'iil kadib duqeymo ay Xisbullah ka geysatay Israa'iil ayna ku dishay 1 muwaadin oo u dhashay dalka Hindiya. sidaan wada ogsoonahay, Israa'iil ayaa shaqaaleysiisay kumanaan u dhashay dalka Hindiya kadib duulaankii ay ku qaaday marinka Gaza. Safaaradda Hindiya ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay joogaan goobo safe ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.